mid ka mid ah wadamada loogu jecel yahay dhanka dalxiiska, kaas oo sanad walba ay booqdaan in ka badan 1 milyan oo qof. Wadanka ugu maroodiyaasha badan adduunka oo dhan. Dalka saddexaad ee Afrika ugu nabadda badan. Ku soo dhawaada nolosha wadanka Botswana. Botswana waa dal aan bad lahayn oo ku yaala koonfurta Afrika. Waxa uu xuduud la leeyahay dalka Koonfur Afrika oo ka xiga koonfurta, Namibia oo galbeed ka xigta, Zambia oo dhanka waqooyi ka xigta, iyo Zimbabwe oo bari ah. Bedka dalkan waa 582,000 kiiloomitir. Waana dalka 47aad ee ugu dhulka weyn adduunka oo dhan. Caasimadiisu waa magaalada Gaborone. Bulsho ahaana dalkan waxaa ku nool dad aan dhammayn 3 milyan oo qof. Waxa uuna ka mid yahay wadamada ugu cidlada badan adduunka. Saxaraha weyn ee Kalahari waxa uu daboolayaa in ka badan 70% bedka dalkan Botswana. Waxa uu ku fadhiyaa ilaa 900,000 kiiloomitir. Saxarahani waxa uu maraa 3 wadan ee kala ah Botswana, Namibia, iyo South Africa. Kalahari ma ahan saxara run ah, sababtoo ah waxaa ka da'a roobab badan sanadkii, si ka duwan saxarayaasha kale ee adduunka. Inkastoo xilliyada qaar abaaro ku dhuftaan deegaanka, haddana roobabku marmarka qaar waa kuwa fatahaada keena halkan. Dalka intiisa badan waxaa ku daboolan dhul caws ah oo loo yaqaano savanna. Geedka ugu caansan waa geedka baobabka. Qaar geedahan ka mid ah waxay jiraan cimri ahaan da' gaaraysa 2,000 oo sano. Okavango Delta iyo beerta qaranka ee Jobe ee waqooyiga dalkan waa meelo qurux badan oo dabiici ah, kuwaas oo qani ku ah nolosha xayawaanka. Maroodiga ku nool beerta qaranka ee National Jobe waa kan ugu weyn marka la fiiriyo cabirka jirkiisa dhammaan maroodiyaasha kale ee dunida. Waxa ay ka badan yihiin 130,000 oo maroodi ah gudaha dalka Botswana. Dhanka kale tiro badan oo shabeelle iyo libaaxyo ah ayaa halkan ku jira. Qiyaastii 17% ka mid ah dhulka Botswana ayaa loo qoondeeyay ilaalinta ugaarta iyo beeraha qaranka ee National Parks. Dalxiisayaasha adduunka oo dhami waxay booqdaan Botswana, dhulka safaanaha Afrika, iyagoo raadinaya fursad ay ku arkaan duurjoogtan cajiibka ah, geriga, dawacooyinka, waraabaha, libaaxyada, haramcadka, iyo noocyada kale ee xayawaanka. Botswana sidoo kale waa meel ay u socdaalaan dadka daneeya daawashada shimbiraha, sababtoo ah noocyo badan oo shimbiro ah ayaa halkan deegaansada. Marka qaybi ka hajirto deegaanka, qaar badan oo kalena waxay ku nool yihiin seerayaasha qaranka. Flamingoska weyn iyo kan yarba waa laga helaa halkan deegaanada Botswana. Inta badan dadka ku nool Botswana waa qowmiyadda Sawana. Waxaa la sheegaa inay ka soo jeedaan boqor Mogale oo noolaa qarnigii 14aad. Sawana waxay hadda ku nool yihiin inta badan magaalooyinka waaweyn, laakiin qaar badan ayaa weli ku nool tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ah. Waxa ayna xanaaneystaan xoolaha oo ay cunaan hilibkooda, cabaana caanahooda. Qowmiyadaha kale ee waaweyn ee ku nool dalkan Botswana waxaa ka mid ah qowmiyadda Basarwa iyo qowmiyadda kale ee loo yaqaan Kalanga. Kaliya 1% dadka ah ayaa caddaan ah oo ka yimid Yurub iyo Mareykan. Carruurtu waxa ay dhigtaan dugsiga hoose 7 sano, kadibna u sii gudbaan dugsiga sare, iyagoo ku jiraya muddo 5 sano ah. Waxa ay bartaan luqadda Ingiriiska wixii ka dambeeya sanadka 5aad ee dugsiga hoose. Afka hooyo ee Setswana sidoo kale waa mid ka mid ah luqadaha rasmiga ah ee dalkan. Botswana waxay ahayd dal dimuqraadi ah oo xasiloon tan iyo markii ay xornimada qaadatay 1966. Waana mid ka mid ah dalalka ugu amniga badan qaaradda Afrika, sidoo kalena ugu xasiloon siyaasad ahaan. 5 sanaba mar dadku waxay doortaan xubnaha golaha shacabka. Golaha wakiiladuna waxay doortaan madaxweynaha. Madaxweynuhu wuxuu xilka sii hayn karaa muddo 10 sano ah. Sanadkii 2004, Botswana waxaa loo aqoonsaday dalka ugu musuqmaasuqa yar Afrika marka loo eego madasha dhaqaalaha adduunka. Qarniyo badan ajaanibtu waxa ay maamulayeen inta badan Afrika. Ingiriiska iyo Holland oo loo yaqaano Afrikaners waxay u dagaalameen sidii u maamuli lahaayeen wadamada ku yaala koonfurta Afrika. Sanadkii 1910
dalalka ku yaala koonfurta Afrika ee maanta waxay samaysteen midowga Koonfur Afrika oo ay ku noolaayeen dad madow Afrikaan ah iyo kuwa ka soo jeeda dalka Britain. Dadka caddaanka ah ee la degay waxay gacanta ku hayeen sharciga iyo nolosha dadka madow ee Koonfur Afrika. Botswana waxay rabtay inay xornimo ka qaadato oo ay ka madax bannaanaato dalka Koonfur Afrika. Aakhirkii Botswana waxay xornimada ka qaadatay Ingiriiska 1966. Celeste Khama waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka. Sanadkii 1967 meel aad u weyn oo dheemanka qani ku ah ayaa laga helay deegaanka Oraba oo ku taalla cirifka lama deegaanka Kalahari. Dhaqaalaha Botswana waxa uu si degdeg ah ugu bulaalay macdanta dheemanka. Botswana waxay sanadkii ka heshaa $1 bilyan macdanta dheemanka, waana mid ka mid ah dalalka ugu badan ee soo saara dheemanka.